Hadafaynta haasawuhu waa hadaf weyn oo kaalintiisa qofka dhalinyarada ahi uuna ku baraarugsanayn waa xilli qofku ku guda jiro go'aamadiisa nolosha midka ugu muhiimsan. Ha ku baraarugsanaado ama yuusan ku baraarugsanaanin, wuxuu ku guda jiraa go'aankii uu ku dooran lahaa qofka iska soo kici lahaayeen noloshiisa inta ka dhiman. Haddii ay isku raagaan qofka ay qaab kasta iyo si walba isu qaabaynayaan, hadday dumar tahay waxay dooranaysaa qofka ay nolosheeda iyo ubadkeeda ku aamini lahayd. Aabba ay ubadkeedu wax badan ka baranayaan kagana dayanayaan. Hadduu rag yahay, wuxuu xilligan dooranayaa boqoradiisa iyo hooyadii ubadkiisa barbaarinaysay, ama wuxuu dooranayaa qof uu ka qoomameeyo guursigeeda. Kolka aad eegto muhiimadda haasawuhu xilligan leeyahay iyo sida micno darrada ah ee ay dhalintu ku dhaafto ee sidoo kalena arag furiinka faraha badan ee bulshada ka dhex jira, waxaa kuu soo baxaya inuu xiriir weyn u dhexeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada daawadayaal, waa mar kaliya muuqaal cusub kaasoon kaga hadli doono hadafaynta haasawaha, inagoo isbarbardhig ku samayn doona haasawihii hore, haasawihii dhexe iyo haasawaha maanta, siday muhiimka u tahay inuu hadaf yeesho. Magacaygu waa Axmed Yaasiin, halkanina waa Higsi Hadaf. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Haasawihii hore laba qaybood baan u qaybinaynaa: haasawihii magaalka la socday iyo kii hore ee miyiga. Haddaan in yar fiirino habkii ay dhalintii hore ee Soomaaliyeed ee miyiga joogtay u haasawi jireen, waxaad ka fahmaysaa inay ka faa'iidaysan jireen muddada ay haasawayaan, waxayna ahaayeen dhalinyaro muddo kooban haasawa. Se muddaday haasawayaan waxay isku jarribi jireen midba midka kale inuu ka eego garashadiisu intay qodan tahay iyo siduu uga soo bixi karo nolosha adag ay ku yihiin. Kolka aad eegto inta yaray naga soo gaadhay halxidhaalayaashii ay isku jarrabi jireen ama isweydiin jireen, waxaad ogaanaysaa inuu ahaa haasawo ilaa xad lagu tilmaami karo inuu ahaa mid hadafaysan. Haasawihii dhexe, kolkii uu magaalku bilowday, dadkuna ay soo galeen magaalooyinka iyo tuulooyinka, waxay la kulmeen nolol aanay badi door ku lahayn, aanay u baran nolosha cusub. Waxay ahayd mid si dhaqsa dadku iskaga soo daba dhacayeen, hab-nololeedkuna aanay meel la haysan ilaa laga soo gaadho xilligii burburka ee qaxoontiga la galay. Haasawuhu wuxuu ahaa mid ka duwan kii miyiga ee hadafaysnaa ee loogu diyaar garoobayay nolol macnaheeda iyo shaqada taalaba la fahansanaa. Waxaa bilowday haasawihii magaalo, haddana aan hadafaysnayn. Haasawaha maanta iyo siday muhiim u tahay inuu hadafaysnaado, haddaba iyadoo lagu jiro qarnigii 21aad oo ay wadafuranka globalization adduunyadii isu furay oo ay noloshii iyo howlaheedii ballaadheen, ayaad weli arkaysaa in dhalintu haasawayso xilligii dhexe loo haasawi jiray ee iska caadiga ahayd. Nooc haasawihii hore ka mid ah iyo hab-nolol maalmeedkii ka jiray way islahaayeen. Hab-nololeedka maanta jira weli waxaan ku wadnaa haasawihii hore, qiyamtoodii, qanaacadoodii, hafahankoodii, mudnaansiintoodii, nooc barbaarintoodii, dhaqaalahoodii, heerkoodii waxbarasho iyo guud ahaan noloshoodii. Haasawaha maanta wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid qorshaysan oo aad garanayso waxaad uga baahan tahay iyo qofkan kale waxaad uga baahan tahay. Sidoo kale in qofkan aad la sheekaysanayso uu yahay qofkii safarka dheer ee noloshan iswada bedeshay kula geli lahaa, sidoo kale inuu yahay qofka ugu habboon, sidoo kale aad adiguna ku habboon tahay. Tusaale, shirkadda kolka ay ku bannaanaato kaalin shaqo, shaqaale u baahato, waxay soo bandhigtaa shaqada iyo booska ka bannaan ee ay doonayso in loo buuxiyo. Dabadeed waxay codsataa in qofku codsiga shaqada soo buuxiyo, isla jeerkaana soo raaciyo warqad ka turjumaysa waayo-aragnimadiisa CV. Kolka la kala shaandheeyo dadkii soo codsaday shaqada, qofka iyo labada ay xulatay waxay ka qaadaa wareysi dhinacyo badan taabanaya oo looga gol leeyahay in shirkaddu eegto baahida ay qabto ay doonayso in loo buuxiyo iyo qofkan karaankiisa iyo xirfadiisa inuu yahay qofkii ku habboonaa ee kaalintan u buuxin lahaa iyo in kale. Haddaba kolka uu qofku doonayo inuu qof noloshiisa ku soo biiriyo, waxaa sidaas oo kale muhiim ah inuu eego qofku la haasawayo inuu yahay qof baahiyaha uu qabo buuxin karaya, waxa uu ku liitana ku wanaagsan. Intaa marka uu hubiyo, waxaa sidoo kale muhiim ah inuu eego inuu isaguna yahay qof buuxin karaya baahiyaha qofka uu la haasawayo, qiimaha uu qofkaasi leeyahayna uu isagu ka madhan yahay ama aqbali karayo. Waayo haddii aan labada la is waafajin, isku habboonaantii ayaa meesha ka baxaysa.
Daawade waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelka oo ka mid noqo bahweynta nagu xidhan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.